waa dugsi sare oo kii ugu horeeyay noociisa oo kala ayaa laga furay meel ka baxsan oo ilaa 90 kilomitir u jirta magaalada Boorame ee magaalo madaxda gobolka Awdal. wariyahayaga Xasan Raage ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadii furitaanka loo sameeyay oo dabadeedna warbixinta noo soo diray. sidaas ayay ku bilaabantay xafladii furitaanka dugsiga sare ee Boordanka ee Gab. dugsiga sare ee Boordanka ayaa meesha uu dhaca ama uu ku yaala waxay u jirtaa magaalada Boorama 90 kilomitir oo dhinaca waqooyi ah oo noqonaya dugsigaasi kii ugu horeeyay ee Soomaaliland laga furo waayahan dambe dugsigii ugu horeeyay ee Boordan ah oo loogu talagalay ardaydu in ay waxyaabaha ay u baahan yihiin waxbarashada cuntada jiifka iyo wax walba ay ka heli karaan. waxaa ka qayb galay xafladda furitaanka dugsigaasi koox wasiirada kamid ah Soomaaliland kuwaas oo ay kamid ahaayeen wasiirka cadaaladda Professor Ismaaciil Moominar, wasiirka beeraha Professor Faarax Cilmi Geedole, wasiirka dhalinyarada dalxiiska iyo hidaha iyo dhaqanka Mudane Maxamed Mad iyo ku xigeenka wasiirka waxbarashada Mudane Cali Xaam. waxaa sidoo kale ka qayb galay madax ka socotay gobolka Awdal oo ugu horeeyay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolkaasi Mudane Daahir Maxamuud Xadi. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay marti sharaf kale oo aad u fara badan kuwaas oo iyagu markaasi aad u qadarinayay in ay arkaan dugsigaasi meesha cilada ee banaanka laga dhisay kaas oo ay ka faa'iideysan doonaan arday aad u tiro badan. dugsigan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu horeeyay ee noociisa. xafladaas halkaas ugu horeyn waxaa ka hadlay Dr. Cabdiraxmaan Beyle oo isagu ah dadka dugsiga fikradiisa iyo dhismihiisaba isagu lahaa. Dr. Cabdiraxmaan Beyle ayaa hadaladiisa waxaa kamid ah maanta waxaan taaganahay marka iskuulkii physically uu dhismay afartan kalaas baa dhisan meeshii cuntada lagu cunayay ee ardayda hablaha iyo namadooda wax ku cunayeen diyaar bay tahay waa halkaa idinka muuqata insha Allah tacaala way diyaar garoon doontaa. halkii macallimiinta administration ku dhisan yahay macallimiinta halkii seexanayeen waa kaa dhismaysa halkaas uu taagan yahay macallimiintiisii markaa ardaydu hadday wuxuu yidhi Afrika deyrkayga weeyaan geeskuna deriskayga weeyaan Jabuuti duleedka weeyaan Awdal degmadayda weeyaan Beedina dugsigayga weeyaan Soomaali dadkayga weeyaan tareek iyo jiilka weeyaan diintayda islaamka weeyaan. hadday kala daadsan tahay bulshada isku duubni iyo dadkoo loo midoobay iyo dalaandariteeda iyo cadaaladna deeqda iyo sinaan lagu doogsan iyo xornimo ummadayda weeyaan. sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiirka ku-xigeenka waxbarashada oo isaguna markaasi tilmaamay in uu iskuulkani noqonayo kii ugu horeeyay ee wasaaradda waxbarashada ay u aqoonsato mid Boordan oo laga sameeyo Soomaaliland.